وحاكمية الشهادات كان نينك حق عدي أمضوا أي أمهراتي كعجرتي وناقيسة قصة عانو الله يقانو الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام فقيه هذا محدد كود إمام كودي يمكن مرابط كأي شام با إلى كل رقبتي أيام مركي الدولة دي رهيب بنو أميين للدنيا أبو العباس عبد الله بن علي الصفاح ونين دلا أمضى اسكب جور عسيد أرجع أمي تنشريها يا أويري مركو شام قبصري حوري الأوزاعي كور من صعد كأنك عن بغداد إلى أن كان من أهواز يا فارس أن قبصنا الشام والدولة دي رهيب بنو أميين الدنيا كورن حوري عبد الله بن علي داود بن علي صاحبان أهين بول داود بن علي وأمير كان صفاحة ولا الكيوي وحر بها الشيخ إنه قد يضعن كبحوه ويقول هنيه ولا لك بأنه صاحباء أهين نين ولا لك صاحب كان لو ما حد قد به فرح يقع سؤال خطروي وأن أفقد من بلاتريسة مي ريبا ومية بابي أرورتا وحوق قورعي تضلالات ريبا ومية ولبا أخيار طوضيع سراكيشو دي علماء دي دقيقة وأرورك لي قورعي 70 أهل بيت من مرميو قورعي قلب كذا بقول ياري شيخ وكفتوا على قضية أيضا رجل أن لا يديقن يحولها صو صح معها بأوزع الله ياري هذو ما يرده هو مقية مركب وحور ربعينه وهوشن كسيبتو إلى هذا أنا داود بن علي كانت بيننا مودة بول داود بن علي وركي سكبحه هوشن كويدي كجواب بول حديثك عمر بو كان وإنما الأعمال بالنحديثك إسنادي حدثنا فلان عن إلى عمر بو الدريري قصد كان أصاب بحذي كل بني يد هذا يكون حرام طيب نيد أتي من مواناك بيهاي الله كولا حساب تمي محمان بيهاي الله كاله حساب تمي بقولك عبار بلو كثيرين هي سافتي وشو هي بلو كم ذي كده محمود يرجعوا إلا يدل هاي ضدك جرب تاجنا مريض الله بتنبول وحول الله من هيان هي dhiiggiisa ka carara isay nijaasaynini waalkan dhimay asagoo dhiiggiisa iska duwa waa mariha loo laabtay laba saf baa taagan bu oo dadka sayaafiin niman loo yaqaan dadka leeynjir niman sayaafiska haysto ninkan fiiriya qaf qoorta ku qaadahaya wadaadka muxuu ah madaxa ku maqanba sayaafiin baa loo oran jiray laba layno boqorkii garab taagan yihiin nimanka hadda masaakiin waxa ma laayaan kuwa hore boqorka markuu soo ufay laba saf halkan iyo saf halkan oo seefo wata xiiraha ya sakiima baa taagan hadii lagu fiiriyo shariica khayr madaxda waa maqan yahay labada nimankan seefay la bixeen bood waxay suugaan kaliya inuu boqorku madaxa qaado ila uu fooraayo dhulku mudmudahayay oo awzaaci la fiiriyo bas ay suugayaan haddana wuxuu yiri waxaan ku weydiiyay dhiig reeban umaya ma noo banaan mise noo banaanay dadkii aan saaka laayay reerihi aan jaray soo xaq maanan ku jarin oo maysan ku goyn mise xaraan bay ahayd أوزاعي ماشوا تاجيها مال لا يستاهل كرامه. وحول حديث كي بودني شذي. هذا لو حكوا عليه كانت بيني وبين علي داود بن علي مودة. أنا داود بن علي صاحبان وأهين بقر ووركا ضوابطي. هوش آير مال جقتي هاي جيلين بوله. قد أنا كبح كريقده. مرقوا وحكوا لي هوش كبح وسأش كجواب. حديثك 40 كان لا أتكاي لا يحل دم المريض إلا بإحدى ثلاث حديثك بو كاني ديغان وحو كوغو بنايا ما غران هيبو ريبن ما يهدي مسلمين هاي ديغود ما بناناي هداي غالا هاين ادو عديبو مزناد بي اهايين مدد بي لايين محسنين زناد اي اهايين مدد بي لايين ما يردوبين ما هاينبو marka xadiidkii uu daliishaday hadana duqu in badan buu fooray uu foorasay tan markan uu ka xanaaqay way horaniyay qasdiga hayde dadkii saaka go'ay reeban oo meedhigoodi baa xaraan ayuu boqor ka fawaanin faqiih oo aqoon lagu garanaya ee wuxuu rabaa wadaad intuu cabsado oo balbalo u feermeeyo ugu duwa hadhowna fatwadiisa loo ictimaado umada lagu baabiyo ayuu raadinaya wuxuu xoolihii aan qaniimaysteen reeban oo ka qaaday ilaa Baghdad ilaa halkan badad waagida ma yaga asaasay laakiin wixii aan dhul ka soo qaado dhanba xageed ka waran buu hadana wuxuu soo celiyay Daawud ibn Ali صاحبانو ahay qadida waa cuskada dadka hore carbeed dhawaaqid bahan noqdeen laakiin macrifada iyo wajiga iyo qaraabada iyo waxaasi aad bay u xurmeyn jireen waana tixgelin jireen marka wuxuu ku yiri hawsha ka baxo su'aasha ka jawaab xoolihii reer bani umayya ka war su'aashan adaygeeda wuxuu yiri xoolihii reer bani jawaabta u fiirso wuxuu yiri xoolihii reer bani umayya ay haysteen hanti ahay ee dadka ay ka soo dhaceen
ayaga hadday xaaraan ka ahaydna adna xaaraan bay kaa tahay ayagu hadday xaaraan ku soo qaateen aduguna boqor kala atoo xaaraan kuma qaadan kartid hadday xooluhu ay haysteen xalaal u ahaydna waa xoola muslimiina xaaraan bay kaa yihiin marka laba gooraba adugu xaaraan bay kaa yihiin ayagaaba ku dhaamay oo ayagu waxay kugu dhaameen xalaalna waa ku soo qaadan kareen xaaraanna waa ku soo qaadan kareen labadaa dariiqba hadday xalaal xooluhu ku soo galeen reer bani umay iyo hadday xaaraan ku soo galeen ba adiga kuma banaano hadday xalaal ku soo galeenna waa xoolo muslimiin hadday xaaraan ku soo xaaraan laguma dhamaystiray halkeeda lagu dadka loo celinayay intii la raadso xoolaha dadka laga soo dhacay ee laga xoogay laga booliyaday baa loo celin laba gooraba xoolahan waa ka xaaraan buur wax kuu bannaanna ma aha hawshaasi marka aad bay u adkaatay kadib cabbaar buu furaray marka waxaa la sugay oo loo xadxaytay tii u dambaysa weeye in madax laga goynay niyadii xadiidu alqasd walikhlaas buu ictimaaday dhiiggii waa diiday oo xaaraan buu yidhi xoolihii wuu xarimay meel looga baxsada awsaaci ma jiro wuxuu dhan waa istaagay cabbaar buu iska fooraray asna waa ila hadli waayey markaasaa idhi buu ihi yaa amiirulmu'miniin kaadiba ay haysa kaadiba ay haysa waa la fasaxay haddii wuu iska aamus maxaa la sameeya sheekhi dilana ma laha asagina ma fasaxay awsaaci waa iska baxay alimaamu dahabi tacliiq buu saartay qadiyadda ayada ah tarjamada alawsaaci siyarka laga akhriyo wuxuu leeyahay markuu ka hadlay ninkan uu la doodaya awsaaci oo runta u sheegay hor taagan yahay buu ka warramaya wuxuu yidhi qad kaana cabdullahi bnu caliy malikan jabbaara safaakan lidimaa sacba almiraas ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بالحق بمر الحق كما ترى لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق هذا الكذهبي آدب وقبغي وحوليه هاي نين كان عبد الله بن علي الصفاع أبو العباس nin la yaqaano safax baa loo bixiyey safax waxaa loogu bixiyey dhigu daadiyey dhiiggu saa u qubi jiray aw daman masfuuxan soo qur-aanka maydan ku arag dhiigga islaamka iyo dadka ka soo oriyey walaalkiibuu dilay oo asaga adeerkiibuu dilay wuxuu u daahaya ma jiro nin wuxuu ahaa dadka baaba'ashuu ahaa marka wuxuu yidhi melig jabbaar uu ahaa oo muxuu ahay dhiig daadin badan oon lala dhaqmi karinba sacbal miraas in lala dhaqmo oo lala joogo oo laga agdhowaado waaba adkaydba ayadoo sidaa jirto oo waxyaabaha xaqa kuu diidaya caddayntiisu ay ninkan ku ag badnaayeen baa haddana awsaaci wuxuu ku dakray buu ihi xaqi khadhaadhaa buu u dhiibay xaqi oo khadhaar buu ku dakrahaya wuxuu idhi ma aha buu idhi laa ka khalqin min culamaa'i suu awsaaci muusan noqonin buu ihi badan oo adduunka joogo culama iska yeelahu culamaa u su ah maxay sameeyaan yuxasinuuna lilumaraa'i maa yaqtaximuuna bihi min aldulmi waalcasf umaradaa loo qurxin idinka ahlu khayra طaacatu weli amri baad leedihiin idinkaa u fiican wax idin dhaaba ma jiro wadaadaha unbaa boqorada unbaa la daba ordiyo la daba hablaynoo loo qurxinayaa wixii xumaanay la yimaadaan bal wuxuu ihi sheekhu shaygii xaqa ahaa iyo baatil ugu bedelahayaan baatilkina xaq bay oga dhigahayaan qaatalahum allah bul wadaadahaas allaha baabiyo allaha lacnado waxaa ka mida inay culamaa usuu yihiin yaskutuuna calaa bayaani اlxaqi yaskutuuna can bayaan xaqi maca alqudrati caleyh xaqa in la caddeeyo ayay ka aamusayaan ayagoo kari kara inay caddeeyaan qadiyadaasi marka alimaam alawsaaci hadda wuxuu ku ammaanan yahay in meesha adag intuu istaagay xaqu u badheedhay kuwa maanta jooga waxay ku oranaya ninkaas waa mutahawir qar iska tuur weeye ninkan seefta la taagan alimaam alawsaaci naftiisii iyo ummaddii dhannayd buu isu qiimeeyey xilligan oo kale haddii xaqa lagugu dilahayo ruksaa taalla inaad iskaga leexan karto ila ma ogta marba haddii lagugu dilahayo ushu waa khalis weeye oo waajibulamri wuu kaa dhacay bilmacruuf wanahy can ilmunkar laakiin istixbaabkii baa baaqi ah idaa saqata alwujuubu baqiya aljawaaz aw cala alaqali baqiya alistixbaab istixbaabkii iyo jawaaskii baa baaqi ah sidaa darteed baa nabiga ugu ammaanay man qaama ilaa imaamin jaa'irin fanahaahu wa aamarahu faqatalah idan awsaaci wuxuu leeyahay haddaad hadda fatwooto reer banu umaya dhiigoodii baa bannaan ninba ka hadhi maayo qoyskaa dhan ee masaakiinta oo culummada leh oo saraakiisha leh oo ummaddan oo qabiil dhan baa yaa irinka u siibahayaan xoolihii haddaad tiraahdo waa bannaan yihiin aniguna dhib baa i haystay nimankaa weligaa waa qasma yaqaana waa wadanhaya waxaa noo fatwooday xajaaj ibnu yuusuf waad garanaysaan
xasan anas buu u yimid wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ii sheegto cuquubadii u adkayda nebi maxamed uu ummad ku sameeyey inaan xadiid wariyo arday baan ahay ba sacad laga bilaabo xadiid baan kaa wariyey waa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi dad buu rabaa inuu baabi'iyo wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa ashaddu cuquubatin lirasuulillah inaad ii sheegto xajaaj ibnu yuusuf waxaa loo sheegay xadiidkii anas ibni maalik ee curaniyiintii nimanka geeli nebi maxamed dhacay ee nabigu intuu soo qabtay uu laayey baa loo sheegay maalinka mimbarku kala istaagay xajaaj intaasuuba raadinhayeyba mimbarku kala istaagay wuxuu yidhi waad maqlaysaa qolyo yaroo geel nebi maxamed dhacay wixii ku dhacay ballamka ilaahay dowladda nin ka aqbaxa indhahan ka soo tuurahayaa wa haadaa anas yuxadiثu can rasuulillaahi buu yihi hawsha la socda anas baa fadhiyo waayeel cutusha xasan albasri baa loo sheegay haddaan la joogi lahaa buu ihi anas xadiidkan ma wariyeen leo ninkan waa daalim faajir ah qiil wuxuu raadinaya uu dhiiga ku bannaysto yuu raadinhaya looma sheegeen buna kanoo kale in loo fatooda ninkan maxay tahay markaanoo kale xaaraan wey waati haddaynu soo maraynay oo marba haddii fatwadii ay ka dhalan qiil bannaysi iyo baabi'in inaysan bannaanayn